albaabkii waa la jabiyay cidii waa ay baxeen ninkiina albaabka kor uu ka soo xirtay albaabkii kalena wuu xirtay gabadhii qolkii ay ku jirto ayay isku xidheen waxayna gabadhu ku doodaysay ha ii soo dhawaanin rag isuma galmoodee ana rag ayaa tahay ana rag ayaana kadib gabadhii waa uu u galmooday maadaama ay xaaskiis ahayd ayadoo dood ka qabta ambasana aan ogolayn weliba uu u adeegsaday xoog iyo kartidiisa gabadhan waxaa la qabay muddo 7 sano ayadana ma aysan ogeyn familkeedana ma uusan ogeyn waxaana qabay tira ka kooban rag qisada gabadhani waxa ay ka dhacday gudaha wadankeena qisada sida ay ku dhacday ayaan hadaba idinkaaga warramiyaa gabadhan 13 jirkeedii ilaa 22 jirkeedii waxa lagu arkay isbedel aad u weyn oo dadkii ehelka iyo familkiba dhamaan ay ku wareereen walow ayada xataa ay isku wareertay isbedelka gabadhan ku dhacay ayaa waxay tahay dabeecad ahaan jir ahaan shaqo ahaan nafsi ahaan cunto ahaan ilaa ay gaarto heer ay isbedesho muddadii 7 sano ahayd oo gabadhan lagu wareersanay waxa qabay tiro rag ka kooban kuwaas oo dib laga ogaaday waxa ay yihiin iyo danta ay gabadhan ka leeyihiin gabadhan waxa ay noqotay qof waalan oo dayacan timi ku baxeen cijiyo ku baxeen oo silacsan gabigeeduba ah qof nolosha ka dhacay oo asidan xayraansan waliba gabadhani waxa ay gaartay heer ay baacihi gurbisooy wadooyinkii geedaradii ay qashinkii ka aroorso oo la soo qabto oo la xirxiro oo la quraan saaro wadada loo wacay meel kasta la geeyay si kasta ayaa loogu dadaalay goobo caafimaad quraan saar cilaaj meel walbo daawada dalka mid oo yacni daawo dabiici oo dhiraadka mid kiimikaalka daawo walbo yacni waa looga samaawaa macnaheedu waa lagu karin waayay waxba iska may bedel hadaba gabadhan maxaa ku dhacay markii ay reerihii wareereen oo wajaqeen oo yaabeen oo yacni qarashna ka baxay gabadhii caafimaad qabin oo ka sii darayso maalin walba ambasa xilli walba ay xaaladeeda caafimaad intiba ka sii xun tahay ayaa waxa ilaahay u soo dejiyay amba yacni ilaahay keenay dawadeedii waxa la geeyay amba waxa imaaday sheekhen ilaahay cilmi baray yacni wuxuu sheegay arrin la yaab leh ninkii caalimka ahay oo sheekh ahay waxa uu sheegay gabigeedu gabadhan in la qabo oo ay qabaan rag badan oo jin ah amba jinni a'uudu billahi shadra jin xafaa jinni ruuxa wali qisada ma aysan dhamaan ee waa ay sii socotay waxa ay reerihii go'aamiyeen amba familkii in gabadhan lagu daro nin waliba nin macallino si fari ah oo yaqaana 114 yaqaana aad quraan ku xigtisa kadib gabadhii ninka ayaa lagu mahriyay oo aabaheed ayaa guri u dhisay gabadhii markii ninka lagu mahriyay waa ay diiday inay u tagto amba loo geeyo gabigiisuba waa ay diiday gabadhii kadib waxa dhacday ninkii inuu gabadhi guriga ay ku nooleed oo imaado maadaama ay tahay xaaskiisa uusan ka xishoonaynin gabadhi guriga ay ku nooleed ayuu ugu imaaday kadib reerihii amba familkii gabadha ay ka dhalatay ayaa ka guuray gurigi si ay ninkan iyo naagtan guriga ay isugu qabaan oo ayaga u joogaan kadib gabadhi albaabkii guriga ay isku soo xirtay ayadoo ooyeynaysa oo qaylinaysa ku dhahaysa anigu ninkan ma doonayo ugu dambeyn albaabkii waa la jabiyay cidii waa ay baxeen ninkiina albaabka kor uu ka soo xirtay albaabkii kalena wuu xirtay gabadhii qolkii ay ku jirto ayay isku xidheen maadaama gabadhu ay ahayd asiga xaaskiisa waxayna gabadhu ku doodaysay misna cod dheer ay ku qaylinaysay ha ii soo dhawaanin rag isuma galmoodee ana rag ayaa tahay ana rag ayaana kadib gabadhii waa uu u galmooday maadaama ay xaaskiis ahayd ayadoo dood ka qabta ambasana aan ogolayn weliba uu u adeegsaday xoog iyo kartidiisa gabadhii iyo ninkii habeenkii sidaas ayay ku wada seexdeen kadibna waaga ayaa bariyay gabadhii caafimaadkeeda dib ayuu u soo noqday maadaama nin culummo ah oo guursaday kadib gabadhii waxayba noqotay gabar adeeganaysa oo hoorsheeda qabsanaysa jikada ayay gashay oo xaajigeeda ay quraac u sameeynaysa familkeeda ayaa dib ugu soo noqdeen waa lagu farxay waa la soo booqday waaba gabar caafimaad qabtay walow tii shal xanuunsanaa waxa la qeylinaysa yaa waa macquul maahan adiga maxaa ku fikiraysaa aan wax badan aan ku fikiray dulucda sheekada iyo meesha aan u socono amba ay u socotaa waxay tahay gabaray ma laga yaabaa amba macquul ma taa waqti xaadirkan inaad ku sugan tahay xaaladaas oo kale amba aad soo martay adigani daawanaya ma iska waraysaa subaxdii salaada ma dukataa waqtigaagu ma fiican yahay kaalmo ma lagu qabaa mar walba qof isku filan oo maskaxdiisu fadhida ma tahay bal adiga nafsadaada tijaabi adigani daawanaya istijaabi waxaan kugula talinaa gabaray waqti xaadirkan hadii aad tahay qof aan kaalmo lagu qabin nafsadiisana aan kaalmaysan ku qabin waad xanuunsantaa ilaaha ku caafi waxa laga yaabaa inay ku maamulayaan amba maamulka lagu hayo qoom kale oo adiga aadan arkin
waxa aan kaaga mahadcelinayaa muuqaalkii ka horeeyay sida aad u daawateen iyo halka aad gaarsiiseen oo quruxda badan waan arkay dhiirigelintiina iyo qaabka aad ila socotaan waxaan kaaga mahadcelinayaa mar labaad iyo mar saddexaadba qaabka quruxda badan oo igu sheer gareyseen oo maxaytooday u daawateen oo dhiirigeliseen waan la socdaa marka asxaabta qaaliga sidoo kale iyo si ka sii sareysa ayaan idinka rabaa maantana inaad muuqaalkan xaqiisa siisaan si kasta ay haataba maraba muuqaalkan inaan ku sii dheeraado waxaan ka codsanayaa si naxariis loo degan muuqaalkan inaad xaqiisa siiso inaad noo sheer gareysaan noo follow gareysaan noo like gareysaan commentigiina quruxda badanna fikirkaaga aad ka soo dhawaad ku soo dhawaada meel leedin ka jecel yahay Ikhruush family iyo xiyeena bye bye